marka anigu HIV AIDS baan la noolahay aniga hadda gabadha xanuunka igu riday waan wareystay maxaa dhibaatada inta la igu geysatay ma ii sheegtid waxay tiri hadda galmo badan sameeysid oo dad aan qabin kula galmoodaan xanuunku ka biskoonaya iskool baan iska soo qoray iskoolka markii hore way qaabileen xanuunkan ina qabtid dad badan baan kala tashanay awalna waan ku garanay laakiin hadda waxaan rabnaa waxaan istusnay inaan gurigaaga kuugu dhigno war hadduu sinaystay anigu ma sinaysan laakiin kuwa sinaystay baa iga khayr badan hadda waxay maraysaa adigu maxaa isu sheegtay in xaaladdeeda hadda meesha marayso gabadha qo'aan bay qaadatay waxay tiri aniga meheradayda ninka Bashiir uu saarnaanaya wixii carreen ha carreen xabiga ma galin Bashiir Cismaan Cawad ayaa ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee qaba xanuunka HIV waa sarkaal ka tirsan bilayska Puntland waxa uu safar gaaban ku yimid dalka Uganda balse imaanshihiisa dalkan Uganda ayuu sheegay in Soomaalida ku nool Uganda uu ku arkay takoor uusan horey ugu soo arkin deegaanadii Soomaaliya ee uu tagay marka hore Bashiir ay nooga sheekeeyo sidii uu cudurkan ku haleelay si marka qalada ayaa waxa dhacday in maartay aan gurs xalaal aan galo gurkii xalaasha ahaa ayaa waxa dhacday in gabar xanuunka HIV la nool oo markaas aan isbaranay oo magaalo kale ka timid aan iskuursanay dhistay aroostay sida darteed xanuunkii adu markaan qabay markaan dhisanay gabadhaas oo waqtiga waxay ahayd 2016 bishii 8 bishii 12 waa laga helay xanuun adigu faahfaahin dheer gabadhaas waan cafiyay laakiin ma xanaaq waxa keenaya mar walba waxaas dhaliya wixii ma ogtahay anigoo dadkii iga helay xanuunkaas waxay ula taliyeen inaan maaragtay aan qariyo waan salaamayaa dhamaantood waxay ula taliyeen inaan xanuunka qarsado maadaama dadka takoorku badan yahay oo dadku ilbax ahayn wax badan markaas waxaan yiri waliba waxa lagu la taliyay dad badan waxay ula taliyeen ciyaalkii ilaa 8 ciyaal ay jooga dumar u badan war gabdhaha la takooriya kaas la yeelay wixii la takooriya iyagu yaalaan baa ku yiri aniga waa la qalday qaladkaasna waan ku sii socon jiray oo waxa way guurkayga waa badnaa sida darteed wax badan iskama eegi jirin si aysan u dhicinin dhalinyaro ama nin oday ah ama nin dambe oo ragayga ah oo saamaynta Soomaaliyeed ama kuwa dambe dhalan doona Allah ka dhigay inaan dhibka gaarin ayaan ku tashaday sida darteed waa aniga hadlay gaashaanle Bashiir iyo gabar uu dhalay ayaa bilowgii bisha 9aad soo gaaray Uganda isagoo sheegay inuu takoor kala kulmay iskuul ay Soomaalidu maamusho oo islaha aqoon aad ka kororsatid iyo maqaaxil looga kala cararay kadib markii la arkay isagoo wax ka cunaya waxaan la Uganda hotel baan degay gabadhi marka saasan gabadhi yartay ku soo kaxay gabar yar oo 16 jira gabadhi markiiba dad baan la helay oo la degtay laakiin aniga hotel baan muddo deganaa waxa warkiina soo gaaray in uu xirmay kaararka qaxootiga oo wax lagu xareyn lahaa sida darteed waxa la yiri waa in sugtaan bisha 12 bay dhamaanaysaa maxaan ku raahdaa tirkoob ku dhamaanaya waqtiga kadib baa la furaya marka waxaan istusay inta iska joogtid gabadhaadana kula joogto waxbarasho bilow sidaas marka arintaas aan istusay marka waxa dhacday iskool baan iska soo qoray iskoolka markii hore way qaabileen lacag adigu la isla qiyaastii $30 ku dhow baa laga qaaday oo macal fariisintii wixii la oran jiray ishak fiigiba isku jira anigu marka maalintii dambe imowliyo maalintii la qoray bari way ku dhaaftay maanta galabtii markii 5 saac inta tahay imow baa la yiri 5 saac subaxnimo marka imow baa la yiri ama 12 marka timekii markaan isku soo aadin inta ka hor nin ii mid wuxuu yiri arrin baa jirta noo imow baa u tagay arrintii way gaaraan waxay dhaheen isla maalintii ka dambeysay waxay dhaheen niyow arrintaana jirta oo waxa jira xanuunkan ina qabtid dad badan baan kala tashanay awalna waan ku garanay laakiin hadda waxaan rabnaa waxaan istusnay inaan gurigaaga kuugu dhigno guriga adigu aad deganta inaan waxbarashada halka kaaga wado ujeedku wuxuu ku sheegay dadka dhigta qof kama joogay qof walba waa baxsanaya xanuunkan dhibaatada laga qabo phobia laga qabo meeshu marayo baa waxa way Soomaalida kaliya weeyaan malaynaya hadda ma istaal kala tagay oo fayl baaba loogu jira dawada sida loo qaadana dawadii lafteeda fayl loogu jira xaqana dhuumasha lagu siiyaa dadka qof aad aqoon baad u goynaysaa meeshaas ka qaada dhaysa xaqa laakiin wuxuu sameeyay marka waxa dhacday wuxuu yiri inuu gurigaadan kugu dhigo si wanaagsan bi ila hadlay aad iyo aad asaga wuxuu dad kala meesha ila leh dadkii ma ogolo kan waxyaabo badan bi iga hadlay waxaan ku yiri waxaas oo ka bax aniga warkayga waa caadiya lacagteedii yacli arrintii si marka culeys badan iguma yeelan saameyn badan iguma yeelan waxaan kuwa madowga iska gal saameyn badan iguma yeelan aniga marka aan soo tagay meeshan lafteeda hadda dhanbeertan agteeda meel ah ayaan TikTok duubayo TikTok baan leeyahay Bashiir Cawad ku qoran yahay marka TikTok aan duubayo ka hadlay arrinta ayadayd baa wiil ila socdo aniga walaalkay wuxuu yiri niyow meesha cuntadana
waxa ka jira in dadka weelasha ku qaataan qaybna carareen meesha cuntada ka cuni jirto hadda gabadha waa u tagnaa lacag baan la dhiganay waxaan idhaa halkaas cuntadeeda halkaas aan ku leenay meesha hadda qof jeeb ku haysan kara cuno waa iska yartaa ilaa meel ku karsatay inaad qof ku xirantay waa labaas mid noqonaysa niyo marka waxa dhacday aad baan u xanuunsaday waxaan kale oo dareemay guriga cid ila degtaan waay $110 iskama bixin karo waxa ay soo dhacay haddii u badato waa $200 marka ma waxaad ku baranaysaa ma cuntaad ka dhigataa ma see marka waxa weeye qofkii marka waxaan sirniyo nin buul ku jira leen hayde ilaa takoorku waa banaanka ugu soo baxa gabadha maqaaxida aniga waxa warkeeda aan wali lama kulmin lamana sheekaysan laakiin wiilku wuxuu yiri gabadha qo'aan bay qaadatay waxay tiri aniga meheradayda ninka Bashiir uu saarnaanaya wixii carreen ha carreen xabiga ma galin waa qof ilmo korsanayo rafaadsan oo walaalkeedu xanuunsan ag yaala dadka carray sababtoo carreen waxay u carreen ninka kursiga ku fariistaan diidina kursiga marka waxay maxay mudan kursiga de ma garanayo kursiga in laga qaaday oo la tahay marka kula fariisata hadda adigu way la fadhidaa way salaamaysaa wax xanuunkan heerka ma gaarsiisano dad inta ay ooyo oo yimaado oo isqarinayo wali oo dhibaataysan oo oran jiray warkaad cadayso hadal maxaa ku qariya hadal dadka ku dhiirigelin jiray hadda waxay maraysaa adigu maxaa isu sheegtay in xaaladdeeda hadda meesha marayso macnaha aniga waxaan rabay dadka iga dambeeyay inaan wax gaarsiiyo dadkaanba dalkii bay ka yimaadeen dadkan waxay u badan dad rirmiye u badan aniga waan fiiriyo waa arkay moogta dadkan waxay u badan yihiin dad tuulooyin reer xoolo dhaqato u badan oo la dhoofin dadka nugaan ku dhool dad yar baa reer magaalka ah waliba dad muqdisho ka yimid iyo xoogaa reer magaalka dadkan kale waa dad waagi hore xoolo dhaqato ah kadib intay magaalada yimaadeen de maartay kuwa sirwaalada iska xirtay weey maaha dad maaha waa qiyaas aniga marka waan arkay moogta laakiin qofka reer magaalka aniga hadda meesha iskoolka dadkaas dad aqoon leeyahay wax bartay laakiin ayagu waxay ka baqayaan dhaqaalada xaqooda ay u fakarayaan waxaan marka dareemay culayska isaaran iyo aad murugta hadda habeen hore ma seexan aad uma seexan wallahi inaan aad u seexan anoo wali si ah oo yar seexday soo kacay intaan wajiga dhaqday tiktok anoo funaanad kaliya qaba waan duuba ku jira waa arki karaa waxaan u duubayay waxaan ka naxay ummadda labada ku dhow 20 kun ku dhow oo Soomaaliyeed oo afkayga garanayso oo isku dhiignahay oo isku dadkan oo islaantinimada naga dhaxayso oo xanuunka la nool intee in la eg baa loo geysanaya xanuunkaas ay haya ummadda Soomaaliyeed ay macnaha dhibaatada loo geysanaya baa igu badan waxaan ka fakarayaa gabar maskiina oo markii la yiraahdo xanuunkaas qabta hadalka ugu horeeya qof ku soo dhacay waxa waa dhilo ma aha wax kale waa dhilo waxa ku soo dhacaya ninka wuu sinaystay war hadduu sinaystay anigu ma sinaysan laakiin kuwa sinaystay baa khayr badan waa tahay Bashiir marka dadka xanuunka sidaadoo kala qaba adiga waa soo bandhigtay laakiin dadka isqariya ee xanuunada noocan ama mentality-ga psychology ahaan loo dhaawacayo waxyaabo ay ku fikri karaan inay bulshada ku sameeyaan waxa kamid ah meeshan hadii la iga ogaado waa ka dhuumanaya xamar baan joogaa moogtaa horta xamar waa magaalo weyn oo dawladda lagu dhex dhuuman karaa laakiin xamar baan ka tagayaa Puntland baan tagayaa waa ku guraya Puntland baan ka tagayaa xamar baan tagayaa waa ku guraya ujeedada waxa weeye xaasidnimada badanayso qofka dumarka laba maada dumarka gelisa badaas gelisa laba maada gelisa aniga hadda gabadha xanuunka igu riday waan wareysay maxaa dhibaatada inta la igu geysatay ma ii sheegtay waxay tiri hadda galmo badan sameeysid oo dadaan qabin kula galmoodaan xanuunku ka biskoonaya fiiri qofal dad ma ogtay annaga waxaan sameynaa dhaqaatiir isu ah marka xaqiiqo jirta ma xaqiiqo jirta hadda ummadda dhan mar wallahi baan waliga iga bixin hadda waa dhibaato adiga isu sii geysanaysay iyo dhibaa isu geysatay waxa marka jira gabdhaha ugu sii daran waxyaabaha keenay baahi ayaga dartooda haysa gabar baahan neef gowracan baa leegeeda kama waabta ninkay doontay guursanaysaa gaajo darteed aniga waa arkay waa soo martay waan arkay saa xog kastaan hayaa waan isu guuriyaa 40 qoys wax ku dhow dal iyo dibad baa ay dhisan maanta inta asbarana 300 qof waa ka badan yihiin si lagu la fahmo xanuunka bulshada Soomaaliyeed inta wacigooda korka u qaadan yahay waxa ka badan inta aan ku baraarugsanayn xanuunkan siyaabaha dadka ugu dhici karo adigoo si faahfaahsan u sharxaya dadka xanuunka sidoo ugu gudbi kara xanuunkan waxa 80% waxa lagu kala qaadaa galmo dhan lamaan waa galmada aan badbaadsanayn qof qaba baana kugu ridi karin sida hadda caadiga dhaqaatiirtu ama yurubta ka socoto hayl qof markuu dawadiisa toos u qaato oo stress ku jirin oo caadi ah maskaxdiisa degan tahay xanuunkaani wuu ka tagayaa wuxuu ku harayaa meelaha ka kooban oo dhaqaatiirtu waxay noo sheegay qanjirada kale iyo meelo la mid ah inuu ku harayo laakiin guursada waa mali dadkaas hadda kuma wacyi gelinaya laakiin waxa ka hadlaya xanuunka waxa lagu qaadaa 80%
waxa lagu qaadaa galmada waxa soo hara waa dhiigga la isku shubo dhiigga waxa jira intii laga baar mar adoo xanuunka qaba aan lagu ogaan karin window period bariya waa intuu ku jiro 3 bilood gudahood adoo xanuunka qabay ba adiguna ka soo baxaya qofkii dhiigga lagu shubo ka soo baxaya inta badan waa la baaraa Soomaha way la baaraa dadka waa la baaraa oo baaritaan buu maraa caafimaad buu maraa macal beer macal waxa buu maraa qofkii marka dhiigga laga shubay laakiin dhiig ku jira window period kiba dad lagu shubaa way dhacdaa taa waa midna waxa lambar 1 ka hadda anigu baaris galay dadka waxyaabo kala mid waxa lambar 1 kala ka ah waxyaabaha oo soo xiga ma garanaysa galmada soo xigta waxa way gowsaha reer baadiyaha ee meelaha iskaga bixiya tanca Soomaalida waxa laga yaabaa qofka inuu aqoon u lahayn kii shalay uu ku bixiyay gowska iyo kii uu bahalka ku bixiyay waxaas isku waa wadaya hawsh iyadoo jeermis dilaan waxa saddexeeya oo waliba Muqdisho hadda ku badan bahasha irbado la wada isticmaalaya daroogada lambar 1 way ka tahay waxa kale dheer ilmaha uurka ku jira mar buu qaadi karaa markuu umushiyan mar buu qaadi karaa markii naaska la nujin mar buu qaadi karaa 3 jeer buu hooyada qaadin kartaa ilmaheeda markii uurka ku jira hadii nafaqadeeda yar tahay ama xanuun kala ku dhaco waxa iimaanay fayraska soo degayo ama dawada qaadan waa qatar buu ku jira ilmahaas laakiin waa boqolkiiba hal baa laga yaabaa ilmaha inuu qaado hadii dawada toos loo qaato boqolkiiba hal baa laga yaabaa inuu ku dhaco xanuun ku dhaco iyo dadaan u tababareen markay dhaliyaan taasna way ku qaadaan dadku way ku qaadaan ko naaskana way ku qaadaan markii wax loogu daro naaska kaliya waa la siin karaa ilaa 6 bilood hore naaska kaligiisa la siinaa wax kale lagu daro naaska hooyada wax walba ku jira biyo iyo wax walba ugu jira hadii biyo la siiyo oo ku dhacay xanuunka ultrash baa ku dhalanaya naaskina waxba martay afkina waxba kaga dhalanayo naaskina waxba gaaraya markaas uu ilmuhu ku qaadaya naaska lamaba inta badan lamaba siiyo marka sida Soomaalidu aaminsan tahay in la isla fariisto la is salaamo qofka in loo soo agdhawaado in cunno la cuno lagu ma qaadi karo mid kale jirto aniga aad uga sheekaysanaan jiray waxa dhigi jiray candhuuftu ma qabtaa dhaqaatiirtu waxay dhahan ma qabto meesha soo maraysa kulul carabku meesha ka timaado waa meel dab ah inta badan candhuuftu barkaad way kulush marka candhuuftu ma qabto dhaqaatiir badan waxay u dhahan waa suurtagal in uu dhakhtar ma wax badan baa jiro oo hoose inay iska dhici karaan candhuuftu ma qabto shumisku lagu ma kala qaaday iska dhaaf wax kale wax dhunkashada lagu kala qaaday maayo waxa kale oo lagu kala qaadayeen la fadhi baan lagu kala qaadeen cuntaan lagu kala qaadeen dhiig aan cunto kugu dari kara ma dadka Soomaaliya ku bishaareen intaan farteeda jeeco cunto halka hadaan ku daro ma noolaanayo banaanka haduu ku noolaanayo waa hore dawis leeyahay baalkaani markuu aleyska u soo baxay banaan arka ama dabayl meel ka dhacaysa ama eleys arko waa dhintay waa mucjiso ilaahay ugu talagalay ilaahay markii loo daayo way waxaan maalinta aniga laga helay waxa la 11,500 wax saas u ah haddana 20,000 xaq u dhaaf taqaba waa 6 sano waxaan xanuun kula nool 6 sano inta maraya 10 sano soo socda waxay noqon 3 qof meel marisno qof qabaan noqonaysa hadii waxaan la iska dayn way takoorka haduu soconayo gabdhuhu waa qurux badan iyo daway qaataan ninkay doonaan bay gursanayaan ciidanka booliska maamulka Puntland oo uu ka tirsan yahay ayuu sheegay inuusan hadda ka hayn shaqo rasmi ah isagoo arinta ku saleeyay mid la xiriirta xanuunka uu qabo oo lagu takoorayo darajadeeda waxaan ahay gaashaan leh ha shaqo rasmi ah oo ka haysan maamulka wax ka aan ka hayo mushaarkayga ka qaata mushaarka la soo diray 2020 bishii afraad ayaa shaqo ugu dambeysay sababtu maxay tahay ciidanka kulli reshuffle guud oo la mariyay baan raacay laakiin soo noqoshadeeda waxay noqotay kii xanuunsan haduu alla na dhaafiyay hanagu soo celinin waxa sida dhabta ah yeelay qof intuu yeelay awal sarkaal waxaan ahaa la jecel yahay shirarka qamiislaha ka qayb gali jiray meel kasta la geeri jiray su'aalaha la weydiin jiray hadda waxa laga yaabaa haddaan taliyaha ciidanka booliska soo aaday inaan wiilal xun hadda dhawaan qortan ee saa'ida dhaafaan aniguna aan muddo sugo oo protocolka ilaaliya laga yaabo inuu ka kaco marka inta saa u dhaqmayaan kuwaas iyo kuwa la midka iyo macal madaxweynaha meesha inta saa u dhaqmayaan na wallahi billahi tallahi Soomaaliya macal guri kasta ugu galaysa arinta marka anigu HIV AIDS baan la noolahay waqtigaas ugu dhacay noocaas aan ahay dadkina wacyigelin u soo baxay dadkan wacyigelin wariyahayna hadda ila fadhiya kamid ah oo aan jeclahay inayna guur iska galin guur oo dhan lama waa guur sidoo galma aan badbaadsaneyn qof walba uu galin galmada aan badbaadsaneyn walba uu fahmaya galma aan badbaadsaneyn yaan la galin runta inay sheegayaan wixii ilaahay xarimana la iska daayay laakiin meeshan waxaan ognahay Soomaalidu way qarisaa waxyaabo waxay qarisaa isheeg
gabdhahooda ma macsiistaan wiilashooda macsi ma galaan dadkooda waa wada nadiif wax dhibaataysan ma leh haddaad wax ula soo qaadid ama galmay waxaas waa qaracmayaan waxa uga hadlaysaa u dhahayaan wixina waa u jeednaa waxa meesha maraysa kufsiga dhacaya ma malin kadib kufsiga meel walba ka dhacaya ma malin kadib gabar anigu waxaan hadda aqaanaa la kufsaday iyada xanuunka qabtay oo dadkii kufsaday aan aqoon iyagaan dhib ku qaba dhibka ayaa ku qaba dhakhtar hadda waxa ka hadlayay xamar hadartan oo uu ku jira wuxuu ka hadlayay gabdho yar yar teenage oo gaarin 8 wax gaar ay ku jirin oo isbitaalka yaala war waxaan aan ka hadlayno waa cudur soo socdo Uganda boqolkiiba waxay gaadhay 40 haddana boqolkiiba 4 buu marayaa bali Uganda hadda mamaalooda ma taga boqol qof mar baa la soo deynaya dawada la siinaya saasafeelka kuraas dheer oo noocaan oo kale ku fadhiyaan saas isu daba galiyaan ana saa u fiirsanay baan ka soo tagay waxaas la hadii dawada 2 bilood baa wata ka go'do meeshan ka qaado marka niyahow dadkaasi marka takoor ma jiro waxba ma jiraan dadka u shaqeynay qayb baa qabta dhaqaatiirta qayb baa qabta kuwan iskoolada dhigay qayb baa qaba wixii marka hadii aan runta laga sheegin ilaa heerka intaan gaari lahayn waxaan oran lahaa wacyigelintan hal la badiyo wasaaradda caafimaadka kale waxaan kula talin lahaa inay arrintan wax ka qabato sida laga soo xigtay dhaqaatiirta ku shaqada leh cudurka HIV/AIDS laguma kala qaado in la isa salaamo la isla fariisto ama weel cunno lagu wada cuno ilaahay ha naga haye waxa laga yaabaa in maalin walba aad raacdo gaadiid uu wada ka yahay qof xanuunkan qaba waxa laga yaabaa in timahaaga lagu jaro mashiin ama makiinad aadan war u hayn cidii hore loogu soo jaray cudurka ay qabtay waxa sidoo kale laga yaabaa inaad ku cunto weel aadan ogeyn qofka hore ugu soo cunay nasiib wanaag intaaba cudurka kuguma soo gaari karo Bashiir oo Soomaali ah aanan ku qarin cudurka uu qabo isla markaana aad ka warhayso siyaabaha uu kugu soo gaarsiin karo inaad faquuqdo maxay ka dhigan tahay su'aasha ayaan maskaxdiina u daayay Shaafiic Usmaan Cali Somali Cable TV Kampala